ujeedadeennana waxa waaye maanta inaan warbixin guud idinka siino wixii noo qabsoomay muddadii koobneed ee uu jiray guddigan madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha. walaalayaal saa la socotaan guddigan waxaa la dhisay bishii November sanadkii tegey 2024 wuxuuna guddoon doortay bishii December 2024. halkii bil aan shaqaynaynay guddigu waxyaabo fara badan buu qabtay. saa la socotaan guddigan waa guddi madax bannaan, ka madax bannaan siyaasad, ka madax bannaan ururo inuu qayb ka noqdo. shaqadana loo diraynana waa shaqo ah inaan dalkan ka qabanno doorasho hufan oo xor ah oo qof iyo cod ah. saa la socotaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto dalkan doorasho waxaa u dambeysay sanadku markuu ahaa 1969kii shacbigu ay u dareeraan doorasho qof iyo cod ah. waxaa laga joogaa 55 sano. dadkii 1969kii ahaa qaangaarka oo codayn lahaa ama xaq weyna codeeyaanna maanta waxay jiraan 70 jiro waaye. dadka Soomaaliyeedna 70% iyo ka badan waa dhalinyaro. waxaad dareemi kartaa marka la isku daro marka age-ka noocaas oo kale ah dadka Soomaaliyeed 90% iyo ka badan ma codaynin codadka ah qof iyo cod ah iyo xisbiyada siyaasadda. shaqadaas marka annaga waxaana loo diray baaxadda leh oo ah shacbiga Soomaaliyeed meel kastuu joogo inaan u fududeyno inay doortaan madaxdooda iyo hogaankooda. guddigan sharafta leh ee madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha waxaa sharaf weyn u ah in lagu aamino xilkaas culus. annagoo mas-uuliyadda iyo xilkaas muhiimka ah qaadnay waxaan bilownay inaanu samayno waxa la yidhaahdo work plan oo ah 7 qaybood 7 pillars aan u samaysanay inay shaqooyinka isaga aan u qaybinno si aan dadka u gaarsiino doorasho qof iyo cod ah. waxaan bilownay kow inaan isku darno labadii hay-adooda waaweyneed oo kale ahaa sohdimaha iyo doorashooyinka qaranka. waxaan bilownay inaan u samayno xeerarkii iyo habraacyadii guud oo ka kooban ilaa 25 xeer iyo habraacyo oo aan rabno in dalkan aan doorashadiisa ku hogaamino. waxaan fariisinay systemkii iyo kala dambeyntii. waxaan bilownay shaqaalihii inaan u samayno xafiis. waxaa markii ugu horreeyay noo dayactirmay bildhinkii iyo xaruntii weyneed ee guddiga u lahaa oo ah midda maanta aanu ku qabanayno shirkan ballaaran. waa qalabaysanay, waa diyaarinay, shaqaalihii waa isku darnay, waana midaynay. waxaan bilaabi doonnaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala noo idmo inaannu dadkii aanu ku bilowno wax la yidhahdo wacyigelin. wacyigelintaasoo ah marka hore inaannu dadkii aan rabno inay codeeyaan inaan wacyigelinno through meediyaha iyo meelihii kaloo loo baahdo. waxaan idinla wadaagi doonnaa 7 beri gudahood jadwalka weyn ee doorashada oo markuu bilaabanayo diiwaangelinta ururada, diiwaangelinta codbixiyaasha, trainingka shaqaalaha la siin doono, codbixiyaasha awareness-tiga la samayn doono. waxaan bilaabi doonnaa inaannu aadno goobaha aan rabno inaan u astayno doorashooyinka. qaarkood horaa loo asteeyey, kuwo kaloo cusubna way ku dari doonaan. dalka saa la socotaan guddigii hore wuxuu asteeyey ilaa 300 goobood. kadibnana dalka waa ogtiin meelo fara badanoo waxaa jirta la xoreeyey oo hadda xor ah oo laga qaban karo. waxaan aadi doonnaa meelaha cusubna waa aadi doonnaa, meelihii hore loo asteeyanana waan aadi doonnaa insha allahu tacaala. waxaan shacbiga Soomaaliyeed ugu bishaaraynaynaa guddigan sharafta leh inuu diyaar u yahay in deegaanadiinna iyo gurihiinna idinkoo joogo, xoolihiinna iyo beerihiinna jooga inaannu idiin imaanno oo na sanduuqa codbixinta idinkeeno. waxaan idinka rabnaa wada shaqayn buuxda oo 100%. waxaan samayn doonnaa inaan amniga guud oo doorashada aan ka shaqayno annagoo ka heli doona garab dowladda oo xagga amniga mas-uuliyadda ugu badan iska leh. laakiin annagu waxaan samayn doonnaa amni annagu aanu mas-uul ka nahay oo qof walba oo codbixiye ahi uu si nabad ah uu ma aragto codkiisa ku dhiibto, goob nabad ahna loo qabto. waxaan diyaar u nahay inaannu wada hadallo la samayno oo aanu discussion kala samayno qaybaha kala duwan ee bulshada. halkii bil oo aan joognay waxaan la kulannay bulshadii rayidka oo aan waqti badan wada qaadannay oo aan talooyin fara badan isdhaafsannay. waxaan la kulannay culimmadii oo ayagu noo ahaa kuwii noogu horreeyo aan ka bilownay. waxaan wada hadal la samaynay oo kulan ballaaran la galnay haween gobolka Banaadir. waxaan la kulannay ururadii siyaasadda. waxaan bilaabi doonnaa mar dhow jadwalka ugu horreeya wuxuu noqon doonaa diiwaangelinta ururada. saa la socotaan ururadu waa diiwaan gashan yihiin qaarkood
waxay samayn doonaan diiwaangelin cusub laakiin fii lagama rabo ururada cusub oo imaan doona oo raba inay isdiiwaangeliyaanna waxay bilaabi doonaan diiwaangelin cusub iyo fii cusub waxaan jadwalka doorashada intaana soo saarin ka hor waxaan bilaabi doonaa oon rabnaa inaan u sheegno shacbiga Soomaaliyeed inaan discussion kala samayn doono qaarkoodna waa kala samayno kuwa kalena waa kala samayn doonaa inaan warbixin siino iyo xog ogaalnimo ah ururada siyaasadda albaabkan iyo bildhikan u jeedaan weynka badan leh wuxuu u furan yahay dhammaan saamilada siyaasadda annagu waxaana guddi madax bannaan shaqadeena ugu weynna waxay tahay inaan ururada siyaasadda iyo dadka siyaasadaha daneeyo oo saamilayda ah oo dhan inaan talooyinkoodii qaadano xeerarka iyo sharciyada noo dhigan annagoo isticmaalayno waxaan diyaar u nahay wax alle iyo wixii concern ka qaba inaanu address gareyno oo aan boqolkiiba boqol kala hadalno una muujino inaan si niyad wanaan uga shaqaynayno annagu waxaan ka shaqayn doonaa doorasho hufan oo xalaal ah inaan dalka qabanno waxaan rabnaa shacbiga Soomaaliyeed meel kastuu joogo inuu noo garab istaago ganacsatada siyaasiyiinta culummada qof walba inuu iyo qeybaha kala duwan ee bulshada inay boqolkiiba boqolna garab istaagaan oo shaqadan naloo igmaday oo aan rabno dalka inaan ka qabanno muddo ka badan qarni ka horna ugu dambeysay in la qabtaa waxaan leeyahay dadka walwalka iska daayaan annagu waa madax bannaan nahay wax walwala ma jiraan tashwiish ma jiraan hana loo yimaado wax allaale iyo wixii discussion diyaar u nahay iyo wada hadal ah waxaan rabnaa inaan mar kale ku celiyo shacbiga Soomaaliyeed ha isku diyaariyaan guddigan sharafta leh waxay diyaar u yihiin inay dalkan ka qabtaan doorasho gole deegaan annagu shaqadeena ugu horeeya waa inaan qabanaa golaha deegaanka ayaan goob cusub u soo asteyn doonaa kuwii jooga waana qabaynaa haddii raalli ka dhigo sharciga saldhig ah sharcigaan ilaalinaynaa federaalismkaan ilaalinaynaa madaxdu waa bini aadan waana khaldami kartaa waana saxmi kartaa laakiin waxa haraya waa buuggaa waxa ku qoran oo dastuurka ah oo sharciga ah oo haddii laga beddelayo waxna si wadar ogola looga beddelo ilaah baa nugu dhaarshiyeen ma dadka intaa la eg baa la indhasar caadin karaa intii gabdho iyo wiilal iyo odayaal intii meel laga soo ururiyo xamar intii lagu xareeyo la yidhaahdo dastuurkii bay dib u eegayaan oo $10 intii la siiya hadhowna la yidhaahdo bulshadii baa soo ogolaatay war bulshadu ma inta xamar joogto oo weliba xalana agteeda deganba aawo bulshadii Soomaaliyeed goormaa lala tashaday dadka indhasarcaadka ha laga daayo dastuurka dalkan uu leeyahay waa kii 1 Agoosto 2012 la ansixiyey mid dambe oo Puntland u hoggaansamaysa ma leh afarta cutub oo la sheegayana waa afar cutub oo haddee xaaladii intii wax ku hesha allaha u calf inbaa waxoogaa ku hesha laakiin maanta wixii aad raadisaan waa wax ciiw waagi ka barye wey waxaad raadisaan wax saxa maaha ninkii maanta midka la raadiyo sidaasoo kale ah waa runtii waa soor quureed marka waxay la tahay hadda ka fiirsada waxaa dal lagu ilaaliyaa waa sharci iyo dastuur marka laga hadlayo masiirka khilaafaadkeena siyaasiga ah inta badan wuxuu ku salaysan yahay doorashooyin waa wax xilliyaysan oo hadda xilli dhaca laakiin masiir waa waxa boqolaalka sano soo socda ummadaha lagu dhaqo dowladaha maanta taaba galay heshiisyadoodu qaarkood waxay jiraan 300-400 oo sano waxaan u baahannahay dowlad Soomaaliyeed oo mid ah dowlad Soomaaliyeed oo sharci ku dhisan dowlad Soomaaliyeed oo runtii ixtiraamaysa kalfadhigan ajandayaasha ay hadda sheegeen waxaa u dheer marxaladda dalka marayo kaalinta ugu aadan ee dhinaca sharciga iyo dastuurka inay wakhti geliyaan waxaan kaloo ku codsanayaa xubnaha Puntland ku matala dowladda federaalka ah inay iyaguna aysan sidii uga maqnaan jireen uga maqnaan maxaa yeelay marxalad xasaasi ah lagu jiraa kala aragti duwanaanta siyaasadeed waa waxa xildhibaanna loo yahay ama siyaasiyiin loo yahay mar walba aragti kala duwanaanta iyadoo kala aragti duwan yahay ayaa masiirka dalka in laga wada shaqeeyo loo baahan yahay